Assalaamu calaykum. Gabar si kedis ah loo waayay. Booliiska oo bilaabay raadinta gabadhaas. Intii lagu guda jiray baaritaanka gabadhaas, waxay la kulmeen booliiska arrin la yaab leh. Mid ka mid ah kuwii lagu tuhmayay ama looga shakisnaa kiiska ayaaba noqday qof 30 sano ka hor dhintay ama geeriyooday. Dhammaan waxa siday ku dhaceen arrimahaas waxaan uga bogan doonaa fiidiyogeena maanta ee ku soo dhawaada. Afar iyo tobankii May 2018, hooyo lagu magacaabo Ann Johnson ayaa booliiska soo wacday si ay u gaarsiiso inaysan gabadheedii meelna ku haynin ayna maqan tahay. Gabadhaas waxa ay ahayd Jolene Cummings, da'deeduna ay xilligaas ahayd 34 sano. Hooyada waxa ay booliiska u sheegtay in markii u dambeysay oo la arko gabadheeda ay ahayd 2 maalin ka hor. Waxaana hooyada ku bilowday murugo markii ay ogaatay inaysan gabadheeda soo qaadanin carruurteedii, aysan ka soo qaadanin ninkii qabi jiray ee saaxiibkeed ahaa, ayna kala tageen. Waxayna ku heshiiyeen in waqtina uu isagu hayo, waqtina ay iyadu hayso, balse maadaama la marayo waqtigeeda aysan soo qaadanin. Balse arrinta ka sii yaabisay hooyada ayaa ahayd in ay Jolene maalmahaas uga doonayeen maalmaha kaleeto ee loona baahnaa in ay carruurteeda waqti la qaadato. Waxayna ahayd maalmaha nolosheeda ugu farxadda badneyd, ahna maalmihii ay dhalatay. Waxayna ku aadneyd maalmahaas 13 May. Waxayna 13 May ahayd 2 beri ee maqneyd mid ka mid ah. Waxaa sidaas tiri hooyadii Jolene. Booliiskii ayaa weydiiyey hooyadii yuu ahaa qofkii u dambeeyay ee iyada arka. Hooyadii ayaa waxay tiri gabadheeda waxay ku mashquulsanayd xilligaas saloon ay ka shaqaynaysay. Qofkii u dambeeyay oo arkay waxay ahayd mid ka mid ah asxaabteeda ay iskala shaqaynayeen saloonka. Iyada iyo saaxiibteedu way soo xireen xilligaas, waxayna soo xireen 5 oo galabnimo ah. Taariikhduna waxay ahayd 12 May. Kadib ma jirin qof aragtay gabadheeda markaas kadib. Markiiba booliisku waxay bilaabeen howlgalkooda, waxa ayna baaritaan ku bilaabeen ninkeedii hore ee carruurta isku haysteen ee lagu magacaabayay Jason. Jason iyo Jolene waxa ay isguursadeen 2013, waxa ayna isku dhaleen 2 carruur ah. Waxayna isla joogeen 4 sano. 2017 ayayna kala tageen khilaafka dhexdooda yaallo oo aad u tiro batay awgiis. Markii ay isfureen kadib xitaa isma aynan daynin, waxa ayna isku sii haysteen xanaanada carruurtooda. Marka automatically booliiska waxa ay si toos ah u abaareen Jason maadaama uu yahay qofka keliya ee looga shakinayo kiiska gabadhaas, maadaama uu jiro wax u dhexeeya labadooda oo ah carruurtaas. Markii ay Jason la xiriireen, waxa ay kala hadleen mowduuca gabadha, wuxuuna ogolaaday in ay wareysi ka qaadaan uuna u imaanayo iyaga. Markiiba booliiska hawshooda ma aysan joojin, waxa ayna waceen haweeneydii lahayd saloonka ay ka shaqaynaysay si ay wax uga ogaadaan. Haweeneydii waxa ay tiri isla hadalkii ay tiri hooyada Jolene oo ahaa markii u dambeysay ee arkaan Jolene in ay ahayd 2 maalin ka hor oo ahayd 12 May 2018. Waxayna tiri haweeneydii saloonka lahayd 2 qof ee ugu dambeeyay maalinkaas inay ahaayeen Jolene iyo gabar kale oo bilooyin ka hor ka shaqo bilowday saloonka oo lagu magacaabayay Jennifer Sabre. 5 oo galabnimo markii ay ahayd ayayna xireen saloonka. Waxayna ahayd markaas markii ugu dambeysay ee la arko gabadhii lagu magacaabayay Jolene. Markii ay halkaas xaalku marayo, booliisku waxa ay bilaabeen inay raadiyaan gaarigeedii ama gaarigii ay lahayd Jolene, weliba ay ka raadiyaan meelaha ugu dhow saloonka. Balse nasiib darro ma aysan helin gaariga ama wax ku saabsan, taas oo la macno ah in gaariga Jolene ay qaadatay
lana aaday meel kale ama uu qof kala qaaday oo uu meel kala geeyey. Saaloonka xilligaas waxa uu lahaa kaamira balse ma aysan shaqaynaynin. Sidoo kale waxa ay baareen taleefankeeda amaba ay fiiriyeen waxyaabihii ugu dambeeyay moobilkeeda laga sameeyo ama laga shaqeeyo, balse ma aysan ahayn. Sidoo kale waxa ay baaritaan ku bilaabeen taleefankeeda, waxa ayna ogaadeen inuusan taleefankeeda shaqaynin 2 beri oo ugu dambeysay qofna lagala hadlin. Sidoo kale bangiyadeeda iyo dhammaan social media ay isticmaalaysay waxaa la ogaaday in 2 beri oo ugu dambeysay aysan wax dhaqdhaqaaq ah ka sameynin. Taasoo la macno ah in Jolene aysan iska maqnayn, ay jiraan wax ay ku maqan tahay ama sabab iyada maqnaysiisay. Booliiskuna waxa uu bilaabay inuu si toos u guda galo kiiska, wuxuuna ogaaday ama u caddaatay inuu yahay kiiskan mid ka weyn sida ay markii hore filayeen. Mar kale waxa ay waceen gabadha ay isla shaqaynayeen Jolene, ayna iskala shaqaynayeen saaloonka oo ahayd Jennifer Cyber. Waxayna dhaheen sidii ay dhaheen ninkeedii hore oo kaleeto, waxayna dhaheen ma noo imaan kartaa ama wax yar su'aal aan ku weydiin ayaan rabnaa. Balse iyada waa iska mirmirisay, waxayna bilowday inay mowduucyo kale oo loo baahnayn gasho. Waxayna booliisku ku dhaheen kaliya waxaan rabnaa inaan dhowr su'aal ku weydiino. Waxayna ku dhaheen kaliya ma jirtaa wax ay kuu sheegtay ama meel ay kuu sheegtay ee rabto inay iyada aado, ama ka dareemtay maalinkii u dambeysay wejigeeda wax murugo ah amaba wax cabsi ah. Waxayna ku jawaabtay ani iyo Jolene waxaan ahayn kaliya dad isla shaqaysta, maanan ahayn dad saaxiibo ah oo wax kasta isku sheega. Kaliya shaqadaas ayaan isku keentay. Xilliga shaqadaas aan igu horeyn jirtay iguna dambeyn jirtay, mana aysan ii sheegin waxba. Booliisku waxay ku dhaheen waad mahadsan tahay. Waxayna ku dhaheen haddii wax kala soo cusboonaado waan kula soo xiriiri doonaa. Saas ayayna ku kala tageen booliiskii iyo gabadhii kale Jennifer ahayd. Markiiba booliisku waxa ay sii wateen hawshooda, waxayna raadiyeen qof ay wax ka dhexeeyaan amaba ay isku dhacsanaayeen xilliyadii ugu dambeysay. Waxayna soo ogaadeen in maalmihii ugu dambeysay ay gurigeeda buuq u ka furnaa, maadaama ay iyadu degneyd guri gooni u ah oo aysan la deganayn hooyadeed. Waxayna deriskoodu sheegeen in maalmo uun ka hor uu jiray nin iyada qasab uga dalbanayay inuu gurigeeda seexdo habeenkaas, balse iyaduna ay diidaneyd. Balse markii ay diiday kadib ku bilaabay inuu qasbo ku qayliyo amaba inuu gacan qaad sameeyo. Sidaas darteed deriska ayaa u adkeysan waayay, waxayna waceen booliiska. Booliiska markii ay imaadeenna ninkii oo iska tegay oo meesha iskaga tegay ayay imaadeen. Waxayna isdheheen arrintu way xalismatay, waxayna iska tageen. Booliiskana waxay aad ula yaabeen sababta uu ninkaas u rabay inuu habeenkaas ula seexdo gabadhaas. Booliisku waxa ay waceen gabadhii Jolene ee hooyadeed, waxa ayna ka codsadeen in ay guriga ay gabadhaas lahayd baaritaan ku sameeyaan oo ayna u dhiibto furaha guriga. Sidii ayayna sameeyeen, waxayna soo baxeen, waxayna soo aadeen gurigii. Balse guriga markii loo yimaado waxaa loo imaaday gurigii oo isku dhex qasan, aadba moodo in ay dad isku dhex dagaaleen, ayna jajabsan yihiin alaabta, armaajooyinka wixii dhan ay jajabsan yihiin. Waxa ayna arrintii isugu soo gadisay ninkii Jason G ahaa, ma aha ninkii aan hore usoo sheegnay ee ahaa Jasonkii hore ee iyada qabay. Kan waa mid kale oo ka duwan oo la dhaho Jason G. Waxa ayna bilaabeen inay baaraan background-ka ama gadaasha dambe ee ninkaas iyo waxa uu yahay. Waxaana u soo baxday inuu yahay saaxiibka cusub ay leedahay gabadhaas Jolene, keliyana ay saaxiibo yihiin dhowr bilood. Balse waxaa la yaab leh in aysan gebi ahaanba Jolene u sheegin xiriirkaas asxaabteeda iyo sidoo kaleeto waalidiinteeda, maadaama ay asxaabteeda iyo waalidiinteeda ay ogaayeen
dooqeeda dhanka ragga ah aad ayay uga qarsan jirtay, waxayna ahayd mid aanan dhankaas ku fiicnayn ama dooqaas aanan ku wanaagsanayn. Waxaasoo dhan waxa ay dhacayn 14 May oo ahayd maalintii ay hooyada soo wacday booliiska soona gaarsiisay in ay gabadheeda maqan tahay. Insha Allah qaybta labaadna waxaan usoo gelin doonaa sida ugu fudud maadaama aan rabno inaysan dheeraanin qeybaha.